walaalkay waa mahadsan tahay walaalkeen cabdiqaadir bilaal bulshaabi ummad soomaaliyeed u taqaano xaaladiisa waa maasha allah boqolkiiba boqol waa uu fiican yahay waa sidiisa hore ugu hadlayaa markii meesha la geeyay aad u hadlayay midkiisa okay ahayd waxa ilaahay mahadiis ah oo u yasiray xabadda inaysan lafna ay jibin xididna ayna jirin oo hilibna ama geelna ay dhex martay laba xabadood aan ku dhacday midna qortay ka saartay midna daankii kasoo baxday afka intay gashay wax saameyn oo ku yeelanin xaaladiisana waa maasha allah boqolkiiba boqol waaya marka sidee wax u dhaceen Muxyidiin ma weerar lagu soo qaado ahaa mise si kamay wax u dhaceen horta sidee wax u dhaceen aniga goobjoog umaan haynin waa marka waa ka maqnaa markii la soo sheegay dabadeedii waxyaabo la sheegay waxay inuu meel maqaayada uu joogay ana ogaaday inuu meeshaas meel aad u fadhiisan jiray ahayd mudooyinkii dambe marka maqaayad qayb sare loogu tagay meeshaas qof hubeysan oo sheegeen meeshaas uu ku xabadeeyay ilaahana u yasiray saddex baalootaan lagu gamay yar kaloo asna cishmish ahaayeen oo ayaa asna dhaawac ka soo gaaray marka alxamdulillah waayay waa fiican yahay yarka kalena asina uu fiican yahay dhanka lugta ay wax ka soo gaartay cajirka laakiin xaaladiisa kala dhamaan way fiican yihiin alxamdulillah waayahay waxaa noo sheegtay Muxyidiin in xaaladiisu hadda ay fiican tahay bilaal haddii uu hadlayo muxuu idin sheegay ma waxaa jira wax saameyn ah oo ay ku yeelatay arrintan ama weerar toos ah oo isaga ku socday wallahi hadda wuxuu noo sheegay malahan cidna cadow olaadna lama ahaynin nin iska dhalinyaro ah oo socialista oo ahaa umadiisa u adeegayay gargaar bini'aadanimo ka shaqeynayay wuxuu ku badbaadaas dhigi karaa go-aankaas oo ummadiisa oo u qaatay ummadda oo sadaqada uu siinayay gargaarka uu fiinayay abaaraha ka shaqeynayay ayuu ku badbaadaan isleeyahay oo xaqiiqa ay ducada waalidkiisa iyo ummadda Soomaaliyeed marka wax hadda uu shacaduna muusan lahayn marka waxa geystan Allah waa calama leenahay laakiin alxamdulillah xaaladiisu waa maasha allah marka dhakhtarka miyuu ka baxay mise wali isbitaalku jifa isbitaalka ma naga la fiixin laakiin waa sheeg xaaladiisu waa okay waayay adiga hadda waa ma kartaa kula sheekaysanaya laakiin looma ogolo hadalka badan xaaladiisu laakiin maasha allah waay Muxyidiin waxa iga warantaa Muxyidiin walaala ahaydeen bilaal ma siyaasadda ku jiray maxaa isleedahay waa lagu beegsaday bilaal sida hore u sheegay waa in dhalinyaro sigoo daayar go-aan u qaatay ummadiisa u adeego si frontier ah oo waxna uu ku bedelanaynin waqtigiisa iyo reerihiisa uu soo go'ay siyaasina ma ahan dhalinyaro heerka siyaasadda hadda uu gaarin muusan gaarin waxna weli heerka la gaarin muusan gaarin hadda cadowna muusan lahayn sida hadda uu sheegay wax dhibaatana qofna kala ma dhaxaynin marka siyaasina ma ahan waa nin dhalinyaro aqoonyahan ah ummadiisana si free ugu shaqeeyo waaya waxaa tiri ummadiisa ayuu si volunteer ah ama isaga uu isku xilqaamay uu wax ugu qaban jiray waa ognahay in xitaa biyo dhaamin ilaa gado uu tagay bilaal maxay tahay hawshiisa hadda uu bulshada u hayay oo aad noo sheegi kartaa muxuu qabtaa taa hadda aad u dambaysa ka dhawaajisa waayay welina waa u hayaa asaana kasii hadli doono inuu sii hay doono hadduu ilaahay qadaro waana diyaar u yahay mar waliba waxa waaye marka insha allahu tacaala ummadda Soomaaliyeed waxa ka codsanayna inay u soo duceeyaan walaalkii